imtixaanka iyo dhibaatooyinka noloshu way badan yihiin. dhibaatooyinka adduunyadu kama tarjumayaan inaad tahay qof Ilaahay ka fogaaday, balse waaba sidaasi cagsigeeda oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu imtixaamaa qofkuu jecel yahay. nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi, Ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu qolo jeclaado wuu imtixaamaa. qofkii imtixaanka ku raalli noqda waxaa u sugnaaday raalli ahaansho, qofkii imtixaanka ka caroodana waxaa u sugnaaday caro. sidaa daraaddeed Allah wuu imtixaamaa addoommadiisa xikmado dhowr ah awgood. mararka qaarkood waxaa laguu imtixaanayaa si aad u dareentid nimcooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey balse aad moogan tahay. mar kalena waxaa laguu imtixaamayaa si Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu baraarujiyo gafaf kaa dhacay awgeed. mar kalena waxaa addoonka loo imtixaanaa si Allah ooga masaxo addoonkiisa gafaf hore uusan weli ka towbadkeenin. mar kale waxaa addoonka loo imtixaanaa si darajaadkiisa loo saraysiiyo. laga yaabaa darajo aadan ku gaarin cibaadadaada in Ilaahay ku imtixaano si aad ugu guulaysatid darajada aadka u sarraysa. haddaba Ilaahay siduu kuu qorsheeyo ku raali noqo mar kasta. imtixaan walboo kaa hor yimaadana ku wajah samirka iyo salaadda. waa walaalkiina Yaasir Mukhtaar oo idinla doonaya guusha labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.